amaba haddii aad muuqaalkan furtay ama aad isku dayaysid inaad muuqaalkan daawatid in aad sanado badan isku dayday in aad ahdaaf dejisid aad gaartid haddana ay in badan kuu suurtageli weyso in ahdaaftii iyo waxyaabihii ay lahayd aad sidii aad rabtay u xaqiijin weyso laakiin waxaa jira sababo dhowr ah oo suurtagal ka dhigi waaya in aan gaarno ama aan xaqiijino yoolkeena ama hadafkeena meesha aan u socno sanad walbana uu noo dhammaado inta badan annaga oo madax haysano oo aad iyo aad uga niyad xun waxa aan rabno inaan xaqiijino iyo waxa sanadkan inoo soo baxay haddaba waxaan rabaa inaan muuqaalkan kuula wadaago ilaa 4 sabab oo suurtagal ka dhiga in sanad walba uu nagu dhammaado annaga oo aan hadafkeena waxba ka xaqiijin sababka koowaad waxa waaye sanadka dhan ayaad hal mar hadaf dejisaa 92% dadka sanadka cusub ahdaafta dejiya marka la joogo bisha labaad ee sanadka way fashilmaan 92% ahdaafta dejiya way fashilmaan ama waxay noqdaan wax la iska himo sababku waa maxay dadku waxay dejiyaan sanadka dhan ay hal mar ahdaafta dejiya waa muhiim inaad sanadkan ahdaaf aad leedahay aqoonta laakiin waxa kaloo muhiim ah in aad sanadka kala qaybisid oo kuwaatar u kala qaybisid ilaa 4 qaybood sanadka inaad kala qaybisid 3 bilood 9 cisho inaad sanadka u qaybisid dabeetana markaad 9 cisho walbaba wixii aad qaban lahayd in aad qortid bil walbana wixii aad qaban lahayd inaad qortid soo inaad haddana maalin kasta wixii aad qaban lahayd qortid marka waxaa noqonaysaa qof hadafkiisa mar kasta ku dhex jira oo aan ka baxsanayn sababka labaad waxa uu noqonayaa ee sababa in aan xaqiijin weyno ahdaafta aan sanad walba degsanno dib uma eegtid hadafkaaga qaladaadka dadku sameeya waxaa ka mid ah in qof markuu sanadka cusub yahay uu qalin iyo warqad qaato ama notebook telefonkiisa u qaato oo dabeeto uu ku qoro ilaa 10 qodob waxa uu sanadkan rabo inuu xaqiijiyo inta badan dadka marka maalintaas ay hadafkaas ay qoreen ayaa ugu dambaysa soo hadafkaaga waxaa loo baahan yahay in aad dib u eegis ku samaysid in aad 3 bilood kasta eegtid inaad bil walba eegtid inaad isbuuclo u eegtid inaad maalinle u eegtid inaad mar kasta aad dib u eegista aad ka deen sanadkaas intuu sanadku ka dhammaanayo in aad hadafkaaga maxaa suurtagalay maxaa xiga maxaa caqabad taagan saas in hadafkaaga u dhex jirtid waxaa kaloo muhiim ah in hadafkaaga warqad yar oo ku qortid dabeet aad ku dhigsatid meel aad mar kasta arkaysid meel aad subax walba ka fiirin kartid dadka horumarka gaar waxay yiraahdaan maalintii 3 jeer ayaan hadafka sanadka aan leenahay ayaan eegnaa 3 jeer maalintii iska badaaba isbuuc inay eegaan maalinka 3 jeer ayay fiirinaa laakiin anagu inta badan waxaan sameynaa in aan hadaf qorno dabeet aan dib dambe u eegin marka waa sabab ka mid ah sababaha aan u xaqiijin laanahay sanad kasta ahdaafta sabab saddexaad akhiir waxay noqonaysaa hadafka aad degsatay ma waafaqsana standardka يعني standardka waxa la wadaa nolol maalmeedkaaga maalin walba waxa aad sameeyaysid iyo hadafka aad degsatay ma islaha sidaas daraadeed hadafkaagu ma noqonayo mid fulay ma noqonayo mid la gaaray standardka qofka caadiga haddii aadan exercise samayn karin ama aadan xarun gym xaadir karin had degsanin hadaf ah in aad sanadkan jirkaaga dhistid ama in aad miisaan iska dhintid hadaf aad dejin haddii aad wax akhriska neceb tahay oo yacni aadan waxba akhrinaynin oo wax akhris dhan aad isku dayaynin haddana hadafkaagu yahay ka war in sanadkan 12 buug akhrisay 6 buug akhrisay so standardkaaga ka mid ma nolol maalmeedkaaga ka mid ma so hadafkaaga hadafka la xaqiijinaa ma noqonayo marka haddii aan rabno in aan hadafkan hirgelino waa in uu nolol maalmeedkeena noqdo waa in aan maalin kasta waxa aan samaynayno waa in noqdo caadooyinkeena hadda si kale ilaali caadooyinkeena inuu ka mid yahay وأنا هديت صراحة أنا سنة كان بوبا أخسر لبي توم بوب أخسر توم بوب أخسر وإنه نورمالmente أخسر كتير هدي أعرف أنا واحد كتير وإنه قرار كتير هدي أعرف أنا لغة الإنجليزية كتير وإنه معنى والله لغة الإنجليزية وحياها أقمنا ستاندر كان نورمالmente كذا وإنه كتير هدي أعرف أن شركة أدرست أما أعرف أن ميزان إسكت وحياها أقمنا معنى كسر وإنه تمعس أما حرون شيء من أد وإنه كتير مركب dhibaatooyinka dhaca waxa waaye qofka asagoo oo nolol maalmeedkiisa aysan hadafkii kamid ahayn ayuu haddana hadaf degsanaya wuxuu leeyahay sanadkan waxaan rabaa inaan wax xaqiijiyo dabeeto wixii wax nolol maalmeedkiisa kamid ah hawlo kale iska raacna hawlo kale iska qabsana soo marka hadafkaasi ma noqonayo mid la gaaray sababka kale ee sababa in aan hadafkeena gaari weyno sanadku markuu dhamaadana niyad jab aan dareeno wax kamid ah kaliya waxaad leedahay ahdaaf ee marihid system واحد يتفرق وده واحد لو يقان goals and system so هدف قفت إنه ليه هو مهم
hadafku waxa uu sheegaa qofkan jihada u soconayo tusaale ahaan waxaan rabaa in aan culayskayga ka dhimo 10 kilogram waa jihada aad rabtid inaad aad laakiin systemku kaas waa ka duwan yahay systemku wuxuu hadafka uga fiican yahay systemku hadafka haddii la gaari waayo stress buu kugu tusaale ahaan hadda waxaan ka hadlaynay sanadku markuu dhammaado qofku stress ayuu dareemayaa niyad ayuu dareemayaa sanadka intaas oo qodob laha haddana wixii ma xaqiijin maxaa soo u dhacday laakiin systemku wuxuu uga duwan yahay systemku waxa waaye waa wax nolol maalmeedkaaga camal ka dhigaysid soo waxaad samaynaysaa wax yar baa ka bilaabaysaa waad joogteynaysaa wixii marka meeshii aad hadaf eriyan lahayd wixii waxa ka dhigaysaa wax noloshaada ka mid ah tusaale ahaan haddii aad rabtid in aad jirkaaga dhisid oo kale tusaale ahaan meeshii aad ka dhihi lahayd waa inaan waxaas qabtaa waa inaan saas yeelaa keliya waxaad ka dhigaysaa system ah waxaad degsanaysaa in aad macnaa biyo kugu filan cabtid inaad cunto fiican cuntid in aad jimicsiga 10 daqiiqo 5 daqiiqo alla ka dhigo oo daily ah inaad samaysid so system noloshaada wax ka mid ah ka dhigo marka waxay noqonayaan wax aan marna ka helin oo caafimaadkaaga bedel oo jirkaaga bedel markasta cusub tusaale ahaan waxaad rabtaa hadafkaaga wuxuu yahay in aad sanadkan akhrisid 10 buug so intii aad marka 10 buug aad focuska diiradda aad saari lahayd 10ka buug ee dambe diiradda ma saarayso waxaa leedahay akhriska yoomiye aniga waa inaan akhriyaa 2 pages ama 3 page waa inaan akhriyaa so maalin walba haddaad 2 page akhrisid noloshaada ama 3 page akhrisid akhris fara badan oo aadan filin ayaa ku soo baxay wuuna ka duwan yahay hadafkii ahaa markaas cadaadiska hadafka kugu hayay iyo hilmaankii hadafka kugu hayay oo ah inaad iska hilmaantid uu ka duwan yahay marka hadda jirin hadaf keliya waxaad dejistaa sidoo kale system dej tusaale ahaan waxaad hadafkaagu uu yahay in aad qur'aanka bishii hal mar dhamisid soo marka hadafkaas haddii aan system ka dhigno waxa uu noqonayaa in si cibaadadeena ay sare ugu kacdo alla xirnaanshaheena u bato waa in aan yoomiye aan qur'aanka akhriya yoomiye waa inaan qur'aanka intaas ka akhriyo oo marka systemkaasi wuxuu noqonayaa wax noloshaada aan meelna aan ka aadin sidee system loo samaystaa number 1 waxaa samaynaysaa wax yar ayaa ka bilaabaysa wax yar tusaale ahaan waxaa rabta inaad jir dhisatid waxaa ka bilaabaysaa hal bush up inaad samaysid ama 2 bush up inaad samaysid inaad 5 daqiiqo keliya inaad jimicsi samaysid ayaa ka bilaabaysa dabadeed waxaad ku xijinaysaa consistency oo noqdaa muhiim aadan kala goyn intaas wixii aad samaysid insha Allah taala waxaan rajaynayaa sanadku dhamaado in ay kaaga duwanaan doonto sanadadii hore oo haddii aad sababahan iska xaqiijisid iskana dabooshid